gabadha muslimada haddaysan guur ku sugnayn ama aan la qabin in badan waxay la mid tahay waxaan labis lahayn wiilkuna saasoo kaluu la mid yahay sida ilaahay tilmaamaya hunna libaasun lakum wa antum libaasun lahunna waayo waad asturaysaan idinkuna way idin asturayaan gabdhaha iyo wiilasha isqaba mid kasta ka kale labis buu u yahay haddaadan xaas lahayn yaa ku asturaya gabadhu mar allaala marka la guursado sababta loo yiri nikaaxa ha la iclaamiyo oo kor ha loo qaado oo masaajidada ha la geeyo oo nalal sharxan ha lagu sharxo meelaha aroosku ka dhacaya maxay tahay kii soo maraba inuu dhaho maxaa ka jira meesha guur baa ka jira yaa la guursanayaa hiblaayo waa khalaas way dhamaatay waa muxsinad qof kale oo u hanqaltaagaya ma jiro inta badan way badbaadaan gabdhaha guurka ku jira inta badan ma badbaadaan kuwa aan wali guursanin inta badan ma badbaadaan tagsiilaha mar allaala markay inan raacdo cabbaar markuu socodsiiyo salaamo kadib su'aasha ugu horeysa weydiinaya maxay tahay taqaanin ma lagu qabaa haa hadday dhahdo in badan buu ka gaabsanayaa maya markay dhahdana waxaa bilaabanaya hasaabo waxaa bilaabanaya hadal waxaa bilaabanaya teleefon la kala qaato waxaa bilaabanaya arimooyin badan oo noocaasa waayo gabadhani ma aha gabar xasilan ma aha mid ilaalsan qur'aanka mararka gobol ka mida walmuxsanaat min annisaa yaa loola jeedaa muxsanaadka waa dumar rag leh waa xaasas buu ilaahay tilmaamaya subxaana wa tacaala idan gabadhu markay xijaaban tahay waa ilaalsan tahay markay ahludiin tahay way ilaalsan tahay markay masjidka fadhiso way ilaalsan tahay sidoo kale markay xaas tahay oo ay reeri leedahayna in badan bay badbaadaa wax badan ayaa laga yaabaa inay badbaado sidaa darteed walaalayaal xaaladaana aan aad iyo aad u fiirino guurka inuu qiimaha faraha badan leeyahay inaan aad iyo aad ugu dadaalno waa shay muhiim ah ilaahay kitaabkiisana in badan buu ku ammaanay in la guursado in badan dadka guurka ku jira wiilal iyo gabdhana in badan bay aad iyo aad u badbaadaan dhallinyarada waxaan in badan dhihi lahaa guurka aad iyo aad ugu dadaala sanadkan iyo qarnigan aanu ku jirno waxaa badan dhallinyaro waxaa fara badan waxyaabo badan iyo hanti aan haysano laakiin guurkaa yaraaday waxaa adduunka soo maray jiil aan waxba haysanin laakiin guurku ku badnaa waxaa adduunka soo maray jiil mar allaala markii ay guursanayeen aan shilinna haysanin walaalayaal maantana markaad fiiriso ayagoo ilaahay dartii ula jeeday cafaaf iyo dhowrsanaan ka rabay maantana hanti iyo owlaad meel ay dhigaan markaa la la'yahay waayo 3 qofood anaa cawn iyo kaalmo u ah buu yidhi ilaah subxaana wa tacaala waxaa ka mid ahaa naakix iyo nin raba inuu guursado cafaafna ula jeedaa sababtuu u guursanaya waa inuu dhowrsanaado waa inuu edabdaradii akhlaaq xumida magaalada ka jirta alla ka badbaadiyo inuu helo meel uu shahwaadkiisa ku guto inuu helo diintiisii bar ka mida inay ilaalsanaato qofka noocaas ilaahay dayici maayo subxaana wa tacaala qofka noocaasi ilaahay ma dayacayo rabbi ayaa yidhi waankixu layaama minkum waalsaalixiina min cibaadikum wa imaa'ikum in yakunuu fuqaraa ilaahay baa deeqaya subxaana wa tacaala war isu guuriya xaaslaabayaasha wiilka aan xaaska lahayn iyo gabadhaan xaaska lahayn labada waa labada ugu badan ee adduunka fasahaadiya waa labada ugu sharta badan waa labada ugu dhibaatada badan muxuu rasuulku u amray inay soomaan muxuu rasuulku u amray inay soomaan hadday guursan waayaan fisqi baa la diidaa xumaan baa la diidayaa waxyaabo badan oo akhlaaq xumiye aadaab darro ah inay magaalada ka dhacdaa la diidaa iyo bulshada dhexdeeda sidaa darteed walaalayaal waa in marka hore qalbiga aad gashataan maxaan ku guursadaa maxaan haystaa maxaan siiyaa maxaa inta la leeyahay dhibaato fara badan baa imaanaysa maxaaba hala dhee haddii la ilaalsanaan lahaa waxbay ahaan lahayd mana guursanayo mana ku dadaalayo mana soomaayo indhiisana ilaalin maayo waxa la rabo maxay tahay marka akhlaaq xumaa loo socdaa edeb daraa loo socdaa xaaladda noocaas aan iska ilaalino Saciid ibn al-Musayyib gabadhiisii mar allaala markuu u guuriyo canugii ardayga ahaa ee masjidka nabiga wax ka baranayay macallin 2 dirham baan haystaa buu yiri wax kale oo aan haysta ma laha
qaar baa wax u aruursan yihiina meel u yaalaan laakiin ay ku dhoofaan bay rabaan soo maa dhallinyarada agtarkooda labaan haystaa buu macallinkiisii buu la hadlayaa kaalay soo dhowow halkaasaa la fadhiisiyaa loogu nikaaxiyey kitaabkaanu ku soo marnay waa loo mehriyey waan soonnaa buu dhahay maalintaa waa wareeray waa dooqay buu yidhi wiilkii la mehriyey sidaa darteed waxaan iloobayba soonkii mar allaala markaan salaada makhribkaa tukaday gabar baa ku mehersan meherkiina 2 dirham waay 2 dirham buu haystaa wax kaloo ka dhacaa ma laha aqal yaroo doqoshaa meesha ugu yaala sariir ma laha wax la dhigaa ma laha faynus baa u taala laakiin kutub cilmi badan baa meesha u yaala rabbi buu ku kalsoon yahay subxaana wa tacaala intaa wixii ka dambeeyey maxaa dhacday saciid intuu ku fakeray say ku dhici kartaa nin xaas leh inuu keligii jiifto gabadhaadii oo xaasad ahna inay guriga kuu jiifto muxuu sameeyey soo labisuu yidhi jalbaabkeedii bay isku soo tuurtay waa la soo kaxeeyey aabbaa soo kaxeeyey albaabkaa loo soo garaacay waa kuma waa siciidaan garan waaye buu yidhi maskaxdayda waayo waa macallinkii dhammaa waa shiiqiisii gabadhiisii buu u wadaa albaabka markaan ka furo meeshuu taagan yahay alla maxaa dhacay xaaskaagaan kuu wadaa waa yaxyaxay buu yidhi xabad muufii saliid baan ku afuraayoo meesha ii tiilay waxaa isdhahay gabadhii waxaa la yidhi gal calaa barakatillaah gal guriga ninkaaga walaalayaasay wax u socdeen fiiriya intaa maxaa laga cararayaa gabadha noocaasiis arooskeeda qiimo ma laha miya faajiradda maanta looga tumo oo kalaabyada iyo fanaaniinta taasaa qiimiye wanaag leh miya gabadha taabiciyadda ah cilmiga aabbeed xambaarsan khayrkii wanaagga leh mar allaala markii gabadha soo dhaqaaqday waxaan ka xishooday buu yidhi muufadii saliid inay aragto faynuustaa ka dhaqaajiyey marka hore say mugdi u noqoto waa soo cararay wixii baa dhinac u bixiyey xaaladahaas wax loo samayn jira walaalayaal niyad baa idinka maqan iyo iimaan xaqiiqda marka laysku sheego wax kasta waad haysataan wax lagu guursadana waad haysataan sidaa darteed niyad bir ah lala yimaado maniroobi baa naag lagu dhaqi karaa qaar baa yidhaahdaa xaggee lagu dhaqaa lagu dhaqi karin xaggee la tegaa marka walaalayaal sidaa darteed dadka muslimiinta ah khaasatan dhallinyarada gabdhaha waxay sugayaan waa idinka gabdhaha waxay guurka ka rabaan waa idinka waxa laga raba xilkas inay noqdaan waa idinka waxa la raba inay soo xamaalaan waa idinka waxa la raba inay wax soo kasbaan waa idinkana ha ismoogsiinine intaad ilaahay talada u dhiibataan khayrkii wanaagga ku dadaala haddaan sidaa la yeelin walaalayaal wakhti baa dhumaaya wakhtiga waa sii socdaa gabdhaha haddii ay 20 sano ama 18 iyo 25 meelaha ay ku guursan waayaan maxaa la gelayaa sodomeeyo soo maaha maxaa la sii gelayaa 40 maxaa dhiman oo kale goormee guurkii nadiifkii xalaasha ay macaankaa la helayaa sidaa darteed dumarkana wakhti ha ka dhuminina in yar oo rabbi idin siiyaa idinku filnaanaya iimaan raasiqa la imaada daacadada la imaada rabbi subxaana wa tacaala ku kalsoonaada khayrka iyo wanaagga ku dadaala faaxishadaa yaraanaysee meel is-istaaggaab yaraanaya xumaatadii waxyaabaha jira way yaraanayaan mar allaala markuu guurku bato khayrka iyo wanaaggaasaa la gaarayaa sidaa darteed caqabadaadka guurka dhallinyarada intaan markaan uga baxna caqabaadka guurka hortaagan waxa ugu weyn waa waxaan hadda tilmaannay waa iimaan la'aan waa qofkoon ilaahay ku kalsoonayn subxaana wa tacaala maxaan siinayaa meeqa sanaad jirtaa wax ku siin jiray meeqay jirtaa yaase quudin jiray ma waxaad iska dhigaysaa sidii wax adiga risqi gacanta ku haya ma waxaad iska dhigaysaa gabadha risqigeedanaad gacanta ku hayso wixii alla kuu soo dhiibaad siinaysaa wixii ilaahay kuu soo dhiibay daacad ahow dadaalna samee waxaad soo heshana ha ka qarsanin gabadha masaakiinta ah wax allaala waxaad soo hesha wax uga iibi waxa dhibaatadana saaran waa is-aaminitaan la'aan waa khiyaano asagiina waa khaa'in ayadiina markii aragtay inuu khaa'ibay khaa'inad noqotay suu u socdaa loola socday sidaa marka waa in layska daayaa waa in ilaahay laga baqaa subxaana wa tacaala ninkii dhahay maxaan ku guursadaa maxaan haystaa maalinta dambe waxaad maqlaysaa $14,000 baa lagu qaaday
shalay wuxuu lahaa maxaan ku guursadaa ani xagee ka keentay hadda sidaa darteed walaalayaal waxbaa ka ahmiyeysan waxbaa ka awliyeysan qofka muslimka ah diintiisa ilaalsanaanteedu waa guurka qofka muslimka wuxuu ku ilaalsanaan kara waa guurka saa darteed qodobka ugu horeeya ee loogaga baahan yahay waa inaan iimaan iyo caziimo iyo go'aan iyo tala saarasho alle oo adag aan la nimaada waa midda koowaad haddaan taa lala imaanin xeraan buu qofku ahaanaya midda labaad caqabadaadka guurkeenna hortaagan ka mid ah in badan aan saarna dumarka gardarradee waa meherkoo qaali ah meherka faraha badan dhallinyaradu way ka sheegteen walaalayaal sidaa darteed rasuulka sala allahu calayh wasalam in kastoo gabadha muslimadda ah wax allaala wixii ay doontay meher ka dhigan karto haddana wuxuu ammaanay meherka yar meherka asarkee khafiifkee ugu fudud waa meherka ugu barakada badan gabdhihii daxyar lagu guuriyey ilaahay baa baraka ku daray subxaana wa tacaala kuwii faanba ha ka ahaatee intaas waa ya doolara intaabaan nahay xaaladeeda maxaan doolar ka naqiinay markii hore waxara iyo geel iyo lo'baa laysku meherin jiray sidaa darteed baa mar allaala markii maanta meesha la yimid xaaladaana ay saa u badatay dhallinyaradii gadaal bay u kaceen inay gabadhii afka loo kala qaadeen lala hadlaba meherka ugu horreeya wuxuusan awoodi karin maxaa ku xiga xafladdii la dhigi lahaa maxaa ku xiga gabadhii saaxiibaddeeda meeshii looga dhigay oo kale doonaysaa haddana taaj edabdarro la yidhaahdo oo gabdhaha la saaro aysan socon karin 3 gabdhoodna korbay inta uga soo qaadaan 3na intay kor uga qaadaan marka la gelbinayo saa darteed baaba loo cabsi qabaaba inay kufto mashaakil noocaasna waa yaalaa meeqaa lagu kareeyaa xaaladahaasoo dhan waa dhibaatooyinkii caqabadaadka guurka hortaagan taa waxaa ka mas-uula gabdhaha waa laydiin ogol yahay ilaahay subxaana wa tacaala idinkuma ciriirinin meherka idinkaa iska leh xeer ma galo tol ma galo oday ma sheegi karo kaaba qabiilka ma hadli karo inanta ayadaa ka hadli karta gabadha iyo wiilkuu ka dhaxeeyaa laakiin waxa kale wax keen iyo waxaan adeer ha la siiyo iyo waa mawduuc kale laakiin haddii meher yimaado aamus waad maqlaysaa maanta aamus way soo heshiiyeen $300 bay ku soo heshiiyeen maxaa tiri ma 300 ma gabdhana 300 lagu mehriyaa aamus baa taala aamus ma aha hadday malaayiin sheegatana ayadaa leh hadday kun sheegatana ayadaa leh kow hadday sheegatana ayadaa leh wajasadkeeda meesha ugu sharafta badan waa waxay ku banaysanaysa walaalayaal sidaa darteed ha lala gorgortamina waxaan la hadlayaa odayaasha waxaan la hadlayaa waalidiinta bacdamay sidaa tahay meherka gabdhaha iska leh ayaga waa laga codsan karaa walaalay wax iga dhin in badanna islaamku wuxuu aad iyo aad u ammaanay meherka aad iyo aad u yar meherka maanta ay sheegtaan waa waxa kambani lagu furo koox shirka ah markay isu yimaadaan waxay isku dardaraanay shirkad ku furtaan bay keligeed meel u sheegataa maanta xaaladda noocaasaa la marayaa shirkad ma aha walaalayaal meeshani waa inaad cafaaf hesho waa inaad dhowrsanaan heshaa waa in ilaahay subxaana wa tacaala khayrkii wanaagga ku waafajiyaa taasaa markaa lagu dadaalaa gabar baa nebiga u timid sala allahu calayh wasalam waxay tii rasuulka allow naftaydii baan kuu hibeeyey intuu saa u firiyo madaxa ka luxluxay nin baa dhaa yaa rasuul allah haddaadan dankalayn ii guuri aniga waa lagu kala tartamayaa anii igu dar muxuu meelku og yahay ninka muxuu meelku og yahay adaaba 345 lagu soo diraaye markaasuu dhahay rasuulka alla maxaad haysataa waxba ma haysto bax ee wax soo raaraadi waa baxay waa la sugaayey waa soo laabtay rasuulka wax ma soo helin haye orod wax soo raadi walow khatim min xadiid waa faraati bir'a faraati dahaba ma aha faraati fidaa ma aha waa khaatim walaalayaal xadiid waay bir xataa keen gabadha la siiye walo khaatimkii xadiidku soo waayay wiilka kaga warrama guurkiina waa rabaa gabadha inuu gacanta ku dhigana waa rabaa faraati birana ma hayo wuxuu ku bixiyo yaa rasuul allah hada izaari macbista ma haystaa buu yiri go'a ma haystaa war maxay ku falaysaa go'a haddii ayada la siiyana adaa ka dharla haddii adiga lagu siiyana wax ma haysata gabadhii uu iska fariistay intuu dadaali kara waa dadaalay intaad dadaali kartaan dadaala tabari meesha idin dhigto waa gooni laakiin meeshaasaad fadhisaa shukaansina dhaafi maysid xumaanna dhaafi maysid gabdha fiifirsna dhaafi maysid mana gursanaysid xaggee u socotaa marka wuu iska fadhiistay ninkii ilaa majliskii ku dheeraaday rasuulka sal alla alay wasalam wuxuu ku yidhi kaalay maada macaka min alqur'aan war qur'aan mataqaanaa
maxaa qur'aan ah oo aad taqaanaa? nacam, waxaan aqaanaa buu dhahay suuratu albaqara wallatii taliiha, baqariya aala cimraan 286 aayado soomaa baqara. aala cimraan waa 200 aaya isku dar. dusha ma ka taqaanaa oo dusha ma ka aqrin kartaa? haa yaa rasuul allah, waa baqariya aala cimraan. beeqa macallimiin baa nagu dhex jirta. haddii la waraysto hadda wax guursaday ma laha ilaa wax yar maahane. 14 iyo boqolka suurad bay qalbiga ku hayaan. suuratulbaqara iyo midda ku xigtaan aqaanaa buu yidhi. riwaayadaha qaar waxay leeyihiin in allaala intaa taqaano qur'aan baan kugula mehriyey. qaar baa waxay dhaheen 20 aayadood bar inanta. rasuulka sallallahu alayhi wasallam meher baa looga dhigay. meher baa looga dhigay. barakaa ilaahay dhex yeelay. niyaddaa fiican. xafaaf buu rabaa, noolsanaan buu rabaa. adigana waxaad ku welgaartaad rabtaa inta fiisaha kaaga soo baxaya. marka islaama laha wuxuu waxyaabaha ilaahay uu noo dhibaatooyinkii waxyaabaha ay noogu dhacayaan qof kasta danqaasuu wataa. wax ilaahay dartiya maaha subxaana wa tacaala. wallaahi hadday alle darti aan lahayd gabdhahaasoo dhan way afturnaan lahaayeen. idinkoo dhanna cafaaf iyo dhowrsanaan baa la heli lahaa. waa in niyadda laysku furaa, niyaddana la hagaajiyaa, rabbina laga baqaa, dumarkaas ilaahay looga cabsado subxaana wa tacaala. idan meerka xaaladiisu waa sidaa. caqabaadkuu ka mid yahay. waan rajayn doonaa hadday muxaadaradu dhammaato in wax badan laga bedeli doono. gabdhuhuna inay maqlayaan aad iyo aad baan u rajaynayaa. meheradan aad qaalinaysaan walaalayaal dhibaatuu idiin yahay. 30 bay ku tallaabsatay, 35 bay maraysaa, 40 bay u sii dhowdahay, weli lama guursanin. nin la'aanna maa habeen kastaa loo yimaadaa. laakiin maxaa keenoo kalifay? mar allaala markay afka kala furto yuu madaxa gacanta saartaa waxa la sheegay, markaasuu meesha ka cararaya. waa dhibaato aad iyo aad u weyn. ta kale ee caqabaadka guurka ah ee hortaagan waa qabyaaladda walaalayaal. qabiilku wuxuu ka mid yahay waxyaabaha ugu dhibaatada badan. wiil iyo gabar isdoona oo alla dartii isku doonaa qabiil isugu diidaa. waxa casabiyadda ah ee jaahilnimadii iyo wixii hore in laga baxo waa shay muhiim ah. cabdiraxmaan ibni cawf walaashiisa ayuu qabay bilaal ibni rawaaxa. zayd ninka lagu magacaabo zaynaba binti jaxshi waa qurayshiyad walaalayaal. zayd waa addoon la xoreeyey. waa nebiga ina eedadii sala allahu calayhi wasalam. mar allaala markuu walaalkeed u diiday inuu ku mehriyo, wamaa kaana limu'minin walaa mu'mina idaa qada allaha warasuuluhu amran an yakuuna lahum alkhiyaratu min amrin baa lagu soo dejiyey. waman yacsi allaha warasuulah faqad dalla dalaalan mubiina. waa u jeedaa sida lala hadlay. rasuulkii allah waa ogolaaday. kaalay buu yidhi. asagaa ku xihay walaalayaal. soo abtirsaa lagu leeyaha maanta. soo abtirso, saa wax yeel. allah isma guursano. ma dadkaasaa tihiin? xaaladdiina masaamba. arrinta hadda ka hor baa dhibaato noocaasa dhacdo nin ciddiina intaan gabar sinu xumeeyey. ee maxaa iga jira hadduu xumeeyey? anima xumaynaya? waa maya. saa darteed walaalayaal aan ogaano, yaa ayuha annaas inna khalaqnaakum min dakarin wa unta wajacalnaakum shucuuban waqabaa'ila litacaarafuu. waa inaad tacaaruf samayso, waa inaad dadkaaga ka aqoonsata dadka aad ka ereerin lahayd. inna akramakum cinda allahi atqaakum. ninka idinkugu taqwada badan ee ninka idinkugu fiican ee idinkugu karaamo badan alla agtiisa waa kan idinku cabsi badan buu dhahay ilaahay subxaana wa tacaala. rasuulkuna muxuu yidhi, hadduu idiin yimaado nin diintiisa iyo dabeecaddiisa aad la dhacdaan, u guuriyo gabdhihiinna siiya. labadaa u fiiriya. labadii maxaa bedelay? qabiil iyo lacag. labadii maxaa bedelay? casabad iyo doolar. labadii maxaa bedelay? waxyaaba noocaas oo kale ah. sidaa darteed waxaa loo baahan yahay waxa wax lagu qiimeeyo walaalayaal diin ha noqoto. waxa wax lagu qiimaynaya waa in alla ka cabsigu ahaadaa. waa in xaaladda noocaasa la ogaadaa. dadka ahludiinka ah ee diinka yaqiinay gobol ka mid ah yaa laga yaaba inay arrintaa ka suurowdo. iska daa caamadiya. dadkii culimmada ahaa gobol ka mid ah ayaa laga yaabaa arrintaa inay ka suurowdo. iska daa caamadii. dadkii qur'aanka aqrinaayey ummadda wacdinaayey gobol ka mida laga yaabaa in laga helo walaalayaal. wamaa ubari'u nafsii ina nafsa la amaaratun bisuu. sidaa darteed qof kasta oo muslim ah dhaga wax lagu maqlana leh waa inuu qodobkaa iska ilaaliyaa. diin ma leeyahay? dabeecad ma leeyahay? wax ma dhaqi karaa? beri hadday isqabtaan war makaa maqli karaa oo ma celin kartaa? diin lama leeyahay oo salaad la'aan miyuu ku joogayaa guriga? xaaladda noocaasa ha loo fiiriyo. taasaa khayrkii wanaaggu ku jiraa. taasaa rabbi agtiisa cizii karaamo looga gaarayaa. shiiqa kitaabka akhrinaya ma rabtaa iimaankiisa inaad ogaato? adoo tolkiisa aanayn gabartiisaa doono, markaasaad ogaanaysaaye.
naagtaada ma rabtaa iimaankeeda inaad ogaato minyaro la qaado markaasaad ogaanaysaa heerkay xaaladdu tahay marka xaaladaha noocaasoo dhan waxaa qofku khayr iyo wanaag ku gaaraa waxay tahay waa marka ilaahay aayaadkiisa lagu dhaqmo waa diinta ilaahay walaalayaal qabyaalad qiime ay leedahay ma laha wax dadka lagu qadariyaa ma aha labadaa qofood ee aad qabiilka isugu diidayso maqaayad bay ka wada casheeyaan ka waran dhibaatada noocaas labadaa qofoodaad isku diidayso iskuulka markay iskala soo baxeen meelahay soo mareen maxaad ka ogtahay halkaa baad fadhisaa maya ku siin maayo maya ku siin maayo maya saasaa tahay adiga xaaladda maxaa fara kugu jira marka hore waa in xaaladdaa la ogaadaa marka qabiilka oo laysku qadariyo waxay ka dhalataa ama keentaa caqabaadka guurka mashaakilaadka faraha badan dhibaatooyinka adag caqabaadka guurka waxaa kaloo ka mid ah sida dadka gobol ka mida ay ka dhawaajiyeen ama ay tilmaameen waalidka iyo dadka ayagu mas-uulka gabadha ka ah xaaladaha noocaasa lug bay ku yeeshaan mararka gobol ka mid ah mar kastaa ma aha laakiin mararka KBU 938B forma meesha ka qaadan waalidku in badan rasuulku wuu la hadlay sallallahu alayhi wasallam ilaahayna wuu la hadlay ilaahay wuu la hadlo wuxuu yidhi waankixul ayaama minkum isku guuriya ayagaaba la rabay inay istaagaan oo ay gabadhii wax u raadiyaan oo wax noocaas ay sameeyaan waankixul ayaama minkum wasaalixiin cumar ibn al-khattab gabar 18 jir oo 20 jir u dhow yaa ninkeedii laga dilay waa gabar asaga uu dhalay garoobay noqotay waa soo baxay Uthman ibn Affan buu u yimid Uthman oo xabsa garoob noqotay ma kugu daraa raashin uu siimiyo way Umar radiyallahu ta'ala an maya wallahi waa soo baxay ma kugu daraa maya aan ka soo fiirsada buu yiri muddo kadib intuu u yimid buu yiri guur inaan guursado diyaar uma ahi Abu Bakar buu u tagay Abu Bakar ma kugu daraa gabadhaydii oo iga aamusay buu yiri wallahi Usmaan Abu Bakar baa iga darnaa kan wuxuu yiri ma barabiye kana iga darno iga aamusay hadal ima soo celin jawaab ima soo celinin cabaar markii la joogaa nabiga soo doontay sallallahu alayhi wasallam saacadu la raadinay gabadhiisa muxuu ilaahay kugu abaal mariyay khayru khalqila inuu guursado rasuulka sallallahu alayhi wasallam Usmaan Ali Abu Bakar meelaasuu ka reeday khayr buu raadinay ilaahay baa waafajinay subhanahu wa ta'ala haddaad khayr raadisaan Allah idin waafajinay haquusanina walaalayaal nabi Muhammad muxuu yiri nabi Muhammad mar Allah markii Uthman uu u tagay Uthmanna waxaad ku dartaa gabar xafsa ka khayr badan waa mukaltum waa gabadha nabiga sallallahu alayhi wasallam Uthmanna waxaad xafsan waxaad ku dartaa nin Uthman ka khayr badan waa rasuulka sallallahu alayhi wasallam Abu Bakar markaasuu yimid wira Umar raali ahaw waxaan u maleeynaa diga xanaaqday markaad gabadhaadii bandhigtoon jawaabta ku siin waayay ha maxaan kugu xanaaqi waayay buu yiri nin dhan gabadheeda ku garaamay dhahay ku siinay nabi Muhammad oo hadal haayaan maqlaayay buu yiri nabi Muhammad oo dhahay ana guursan doona xafsa ayaan maqlaayay sidaa darteed ayaa waxaan diidayay sirta nabiga inaan banaanka keena sallallahu alayhi wasallam wallahi hadduu nabi Muhammad ka tagi lahaa ama dhaafi lahaa waan guursan lahaa mujeeda garoob kasta wala asturi jiray gabadhi wad asturi laadihiin garoob kasta la asturi jiray way u kala tartami jireen walaalayaal ilaahay bay uga baqi jireen Salama markay dhimatay meeqa rijaala u timid markay asayda ka degtay meeqa u timid Abu Bakar baa u yimido Umar baa u yimido Hebel baa u yimido Hebel baa u yimido dhamaan way rafdiday nabi Muhammad baa u yimid sallallahu alayhi wasallam ya rasuul iska kaydaa islaan da'banahay bay tiri waan maseer badanahay waxay kaloo tilmaantay inay carur leedahay intaba waa xaliyay sallallahu alayhi wasallam intaba waa la xaliyay Habiba zawjkeeda xabashu ku dhintay kaligeeda meesha ku noqotay kaligeeda amr ku noqotay Madiina laga og yahay nabi Muhammad baa akhbaar u diray sallallahu alayhi wasallam oo loo soo mehriyay Najaashi wakiil ka dhigtay wala socotaan walaalayaal kuwii banaanka iska badaaye shanta idin ku meeraysan ya tabaru lahdii baat
dhalinyaroy ilaahay ka cabsada subxaana wa tacaala xaaladda waalidku aad iyo aad bay u dhib badan tahay mashaakil adag haddii aysan u hoggaansamin amarka alle subxaana wa tacaala dhalinyaro badan baa cawanaysaa waan doontay waa la ii soo diiday yaa kuu diiday aabbe yaa kuu diiday hooyo yaa kuu diiday adeer waqti wax la isku diidaa lama joogo xilli baa laguu diidi karaa haddaadan wax dhaqan karin yaa gabadhiis ku siisanaya haddaadan diin lahayn waa laguu diidan karaa haddaadan akhlaaq lahayn waa laguu diidi karaa sidaa darteed baa waxaa la rabaa in raggu ay hagaagaan markaad nin fiican tahay oo toosan oo adaab leh oo akhlaaq leh oo rabbigii subxaana wa tacaala ka baqaaya waalidka aad niyad fiican ku hortagto yaa kuu diidaya dhalinyada gobol ka mid ah waxay ku socdaan qaab aan wanaagsanayn waxay rabaan in gabdho intaas la soo koriyo iskuul la soo waxbana haysanin akhlaaq fiicanna aan lahayn shacaar islaamina aan ka muuqin gabadhi la siiyo yaa ku siinaya saasay jeegada ugu jaran tahay jeegadiyaasaa ugu jaran mar allaala markuu aabbuu arkaa buu ka cuudabilaysanayaa nin noocaas maa la siinayaa marka gabar marka waa in shacaar islaamiya kaa muuqdaa waa in ahludiin aad ahaataa waa in khayr iyo wanaag iyo diin aad ku socotaa waa in awaamirta ilaahay aad fulisaa waa inaad noqoto xataa qofka markuu noocaas soo yahay inta badan looma fiiriyo xoolaha inta badan waxaa dhici karta aabbuu inuu kabo inta badan waa suuragal marka walaalayaalow yaanan isku darsanin xoolo la'aan iyo akhlaaq xumo iyo diin xumo waa dhibaato aad iyo aad u weyn waa dhibaatada midda ugu daran rasuulka sallallahu alayhi wasallam waalidka waa ula hadlay wuxuuna kula hadlay aayada wuxuu kaloo kula hadlay ilaa subxaana wa tacaala nabigiisa ee uu yidhi haddiiba idii yimaado nin diin leh dabeecadna leh diinta keligeed waa lagu kaaftoomi waaye 14 iyo boqolkuu yaqaano uu fasiri karaa axaadiista wax badan buu ka yaqaanaa inuusan akhlaaq lahayn baa dhici karta assalaamu calaykum markay gabadhu dhahdo amay qadada ka daahiso dhibaato weyn maalintaana guriga lagu hooyanba akhlaaq baa loo baahan yahay walaalayaal edeb baa loo baahan yahay waa la isku dhici karaa akhlaaq wax ku xalli mashaakil baa imaan kara arrintii waxay gabar dhan baa waxaa lagu furayaa caanay daadisay ka warrama walaalayaal caanay daadisay ninka noocaas waa nin xaafid ah waa nin qur'aanka yaqaana waa nin diinka iyo sidaa darteed ilaahay nebigiisa wuu ku kaaftoomi waaye diin keligeed إذا جاءكم من ترضون هدو إذي ماذا قف أضلت عظام إذن قنعي الدين كيسا إيا الدبيع عدي صبو الله النبي صلى الله عليه وسلم أخلاق ذو وحوي أخلاق ذو وحاديات مهم نن أخلاق في عن لكن دينتو أيكو يرتهي إنو قبرنا قوالك يابا لكن من دين بدن يقانا أخلاقنا اللهين سوح كنا قوي عرقتهي suu wax ku dhaqo eedeed bay u dhibaato badan tahay idan waalidiinta in badan waxaan kula dardaarmi lahaa oo aan kula hadli lahaa oo aan u soo jeedin lahaa waxa diidmada la yiraahdo mar bay idin daw tahay idinna fiican tahay laakiin mararka gobol ka mid ah waxyaabaha aad wax ku diidaysaan ka fiirsada waxyaabaha wax lagu diido waxyaabo aan ahayn ha samaynina rasuulku wuxuu yidhi haddaad saas yeeli weysaan adduunkoo dhan fitna iyo fasaad baa camimi doona fasaad baa imaan doona maxay dhalinyaradu la cararaan gabdhaha marka gobol ka mid ah maxaa kalifa inay dhibaato fara badan timaado maxaa kalifa gabar caaba la mehriyey habeen dambe inay dhasho walaalayaal maxaa kalifay gabar uur qabta in la mehriyo waxyaabaha ka socda magaalada iyo adduunkaba darafyadiisa markaad fiirsaan waa la tacajubaysaan soo fasaadkii nabiga tilmaamay maa sallallahu alayhi wasallam gabar inta la gelbiyey habeen tagaasidii la isdaba dhigay woonka saa u yeerinaya waa markii dambe ninkii gabadha arooska waday waxaa lagu amray in isbitaalka ku leexiyo fool baa qabatay waxa dhaha bal waayahe foolaaba qabatayba waxaa loo sii wadaa waxo fasaadka la tilmaamaye laga cararayo walaalayaal kaas waa waalidiinay in badan ilaahay ka baqa subxaanahu wa tacaala gabdhihiina rabbi uga cabsada laydinma diidana meel aan fiicnayn inaad u diidaan oo waad u diidi kartaan laakiin qof allaala qofkaad aragtaan inuu wax dhaqanaayo inuu caqli leeyahay inay waxoogaa uu haysto ha u diidina faadima binti qays baa ka degtay asayli rasuulkaa dhahay mar aan dhahay ciddadii markaad ku erkay kuu dhammaatay isoo ogaysii buu yidhi nebiga markay u timid beeti rasuulka allow ciddadiina way iga go'day abu jahmina waa isoo doontay mucaawiya ibn abi sufyaan way soo doontay maxaan sameeyaa labadaba ha guursan buu dhahay sallallahu alayhi wasallam labadaba dhaaf ninka lagu magacaabo mucaawiya sucluuk lacag ma haysto wax ma haysto teeda kale markaad intaad aabbo hor tagto xataa caqli baa loo baahan dhalinyare wuxuu ku leeyahay waxaan haysta bal gabadhaadan isii وحناقيا أبيه
hadal baa jira lagu hadlo xalay baan idin tilmaamay khibradda ku yar dhalinyarada badankooda waxyaabaa la sameeyaa arrimooyin baa la maareeyaa arrimooyin baa la isku keenaa maxaad haysataa shilin ma haysto ilaahay baa yidhi ina allaha warasaaqa meeshii la taagan tahay ilaahay waa yidhi laakiin rasuulka fiiri sala allahu calayh wasalam ninkan waa sucluug wax ma haysto maxaad haysataa $1 baan haystaa waa wax macquul ah $500 baan haystaa $600 gabadha dahabaa loogu gada ha lagu soo diidaan aragne gurigayga waa diyaar dheh ha lagu soo diidee sucluug waa ninkan lacag ma haysto ilaahay baa yidhi an tabtaquu biamwaalikum inaad xolina ku dalbataan 20 sano iyo 30 sano la soo koriyey waxbarasho hooya caana suuqa ku gadi jirta wax lagu soo baray haddaad ka xadda ka waran haddaad wax kale ka samaysa ka waran xataa wax unkaga farxi wax haddaad leysan hadal macaan baa loo baahaya hadal macaan ladin kama haysto jeeb fiican ladin kama haysto wax laynagu dheefayaaba jirinba marka sidaa darteed ilaahi subxaana watacaala ha looga baqo khayrkii wanaaggan aad ha loogu dadaalo marka waalidka rasuulka sal allahu calayh wasalam xaaladaasuu u tilmaamay gabadhiina wuxuu ku yidhi kaasi saa waay yaa soo haray waxaa soo haray abu jahm waa safar badan yahay qola ku fasirtay xadiidka qola waxay dheh wuu naagatun badan yahay dumarkana ma jecla nimanka naagaha garaaca saa darteed baa wuxuu yidhi kaanaha guursan waxaad guursataa usaama ibnu zayd wiil addoomeed buu ahaa bay tiri ma jeclaysanin laakiin amarka nebi baan qaatay ilaahay baa khayr badan iiga dhigay subxaana wa tacaala amarka ilaahay haddaan qaadanay kan nebiga aad baa loo barwaaqoobayaa khayr iyo wanaagna waa la helayaa dhallinyarada waxaan dhihi lahaa ilaahay aad uga cabsada casmi iyo casiimiin go'aan la imaada asbaabna la imaada intaa wixii ka dambeeya gabdhaad helaysaan insha allahu tacaala gabdho waxaan dhihi lahaa $5,000 iyo $100,000 iyo $10,000 $20,000 ka soo dego waxoogaa bal meel fiican idinkuna imaada insha allah wax badan baan ducayn doonaa inuu furiinku idinku yaraado xalay baanu tilmaanno waxay leedahay tiri ama gabdho ay leeyihiin beri markuu i furo ayaan suuqa ku geli doonaa waana runteed markaad fiiriso markaad laba ka dhasho oo aad dhaadanaa iga tag gurigiina aysan ku noqon karin adiga kuu soo go'day waalidkii shalay yidhi ka ha guursanin oo dartaa ay u soo raacday oo intay adeer iyo awoowe ka soo wareegata lagu soo raacsiiyey shalay keligeed bay ahayd mid dhabarkay ku wadaa midna calooshuu ku jiraa midna gacantay ka wadaa gurigeedii bay ku laabatay way u baahantaha waxay soo hugasho soo maaha in lagaa qaado waad mudan tahay marka bacdamaa saas ay tahay idinkiina ilaah subxaana wa tacaala uga baqa gabdhihii gabdhahana in badan rabbi subxaana wa tacaala ha ka cabsadaanaano khayr fara badan oo wanaagsan ha lagu dadaalo dhibaato badan oo badan baa taala mashaakil fara badan baa yaala gurigii marka laysugu tago wiilkii markuu gacan marnaado dahabkuu gabadha u geday oo dhowlaalay ii gado suuqa ii gey aan ku dhibaatadii waxana haysaa uga baxne qaar baan ogolaanin waa gabdhaha gobol ka mid ah ma nin baan dahabkeyga u gedayaa naarta ha ka naadiye taag baa tiri baa la yidhi naarta ha ka dhex naadiye mashaakil adag waay dad isqaba oo xaaladooda saas eetoo la dhaqmaaya marka walaalayaalow aan ilaahay ka baqno subxaana wa tacaala waalidiintana saasaan markaa dhihi lahaa idan bulshadu nadiif bay noqonaysaa akhlaaq fiicanna markaa waa la helayaa ilaah xaqa waxaan ka baryaa subxaana wa tacaala inuu xaqana waafajiyo ilaah subxaana wa tacaala waxaan in badan weydiisanaynaa guurka dhacaya inuu guur nadiifa nooga dhigo wixii hore ee dhibaatay mashaakil ah iyo waxa meeshii yaalay oo dhanba inuu ilaahay naga masaxo waa nafteeni shaytaan baa sabab u ah ilaah waxaan ka rajaynaynaa dhammaantayba inuu firdowsa nagu kulmiyo intii su'aalaha ayaanu u gadaynaa haddii rabbi idmo subxaana wa tacaala wabillahi tawfiiq wallahu subxaana wa tacaala